بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 4 bisha July 2019 waxa qabsoomay shirkii golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani shirka waxa looga hadlay arrimo badan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne oo ah LR38 ku baabiyay hay'adii biyaha tamarta korontada iyo kheyraadka dabiiciga ah baasaweyn ee dawladda Puntland golaha wasiirada ayaa loo gudbiyay waana ay sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla xeerkaasi wuxuu hay'adii macdanta iyo shidaalka uu ka dhigay waax ka mid ah waaxyaha wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee dawladda Puntland wareegto kale oo madaxweyne Dani soo saaray LR39 ayaa loo soo gudbiyay golaha wasiirada maanta waxaana lagu asaasay wakaaladda biyaha dawladda Puntland iyo wakaaladda korontada ee dawladda Puntland labada wakaaladood oo ay meel mariyeen golaha wasiiradu waxay siyaasad ahaan ay hoos tagi doonaan wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee dawladda Puntland dastuurka oo awal hoos tagayay madaxtooyada waxa loo wareejiyay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta waxaana xeer madaxweyne LR37 lagu soo saaray magaca cusub ee wasaaradda oo laga dhigay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka dhammaan isbedeladaasi la sameeyay golaha maanta loo gudbiyay golahu way ansixiyeen shirka golaha wasiirada waxa sidoo kale loo soo gudbiyay guddi hoosaadiyada ay yeelanayaan golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo madaxweyne Dani uu soo magacaabay waa afar guddi oo kala ah guddida arrimaha gudaha iyo amniga golaha wasiirada waxa gudoominaya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda guddida maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha waxa gudoominaya wasaaradda maaliyadda guddida arrimaha bulshada waxa gudoominaya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare guddida tayeynta adeega iyo horumarinta kaabayaasha waxa gudoominaya wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland qorshahan waxa uu qayb ka yahay hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee dawladda ujeedka guddiyadan waa in la helo madal caawisa fududeynta iyo go'aanka gaarista qorshayaasha mudnaanta leh in la mideeyo wasaaradaha wada shaqeyntooda iyo xoojinta wada shaqeyn iyo iskaashi dabagalka iyo qiimeynta geedi socodka qorshe hawleedyada ee dawladda ayaa dhammaan ujeedooyin u ah golaha waxaa loo qaybiyay maanta xeerka maareynta dhulka magaalooyinka Puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta wasiirada ayaa xeerkan soo akhrisan doona kadibna kulamada dambe ee golaha wasiirada ayaa qorshuhu yahay in looga doodo oo meel marinta xeerkaasi kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale looga hadlay qorshaha fulinta barnaamijka dawladda wasaaradda qorsheynta ayaa golaha u soo bandhigtay dhinaca kale wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa golaha u soo bandhigtay qorshaha diiwaangelinta dadka aan dalka u dhalan ajaanibta ah iyo sida loo wajahayo waxa sidoo kale golaha looga hadlay ka shaqaysiinta golaha caafimaadka ee Puntland oo ay ka warbixisay wasaaradda caafimaadka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ayaa golaha iyana uga warbixisay xaaladda guud ee degmada Calula iyo fatahaadii khooriga Calula wasaaraddu waxay ka warbixisay sida xaaladdu u dhacday iyo waliba sida looga jawaabay iyo waxyaabaha qabsoomay aad iyo aad baa mahadsantiin